Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Mawduucan maanta aan kaga hadli doonaa wuxuu noqon doonaa mawduuca aba kooraska loo yaqaano cyber security ayaan kaga hadli doonaa. Cyber security waxoogaa waa cashar aad u sarreeya oo waxaa fahmi kara ciddii network soo qaadatay programming IT-gana wax ka taqaana ayuu ku humboon yahay inay dhegaysato oo gaar u yahay. Qaybahan waxaan ka hadli doonaa qaybo kala duwan oo hordhac noqon doona amba aragti guud noqon doona sida systemka loo ilaaliyo loogana ilaaliyo waxyaalaha sababi kara in laga xado passwordadaada iyo userska aad ku gelayso device-yada amba computerka wax kastood u isticmaalaysid computerka amba data sensitive wax data oo kugu jira amba xog qarsoon oo sir ah oo kugu jirta computerka waxaayoo dhan ayay sababi kartaa in la xado. Marka taas ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka aad iyo aad ayuu xiiso badan u leeyahay. Dhegaysta ilaa dhammaadka wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa, gaar ahaan dhammaadka aan kaga hadli doonaa waxyaalahaas. Markaa ayaan faahfaahin doonaa sida aad u ilaalin lahayd passwordkaaga iyo datadaada sensitive-ka ah, sida bangigaaga, dadkan dibadda jooga national insurance numberka wax loo yaqaano, waxyaalaha adiga kuu sirta ah ee kugu jira xogtaada computer ku jirta amba aad ku isticmaalaysid internetka gudihiisa. waxyaalahaas saad u ilaalin lahayd waxaan kaloon ku baran doonaa oo hordhac u noqon doonaa casharkani cashara isku xiga oo bilaabi doono haddii la idhaahdo insha Allah oo cyber security-a ay noqon doonaa. Marka qaybtan ayaa waxaan ka hadli doonaa sida computerkaaga amba loo noqdo safeguarding your digital world. Waxaan bilowna markaa. Cyber security waxaan ku baranaa markaa wuxuu ka dhigan yahay waa safeguarding your digital world, inaad ilaalisid waxyaalaha digitalka ee computerka dhex yaala. Hidda adduunyadaan ku xidhanay big network ayaan ku xidhanay saa wada ogtihiin. Marka presentationkan waxaan kaga hadli doonaa qaybaha ay raadaynta ku samayn karto iyo sida ugu fiican ee loo ilaaliyo assetka loogana hortago waxyaalaha dhibaato ku keenaya networkaaga. Okay, waxaa kaloo ka mid ah markaas waxaan baranaa kelmadaha la rabo inaad barato qofka looga baahan yahay. Waxaa ka mid ah kelmaddan ayaa ka mid ah iyo kelmadda waa muhim qof kasta oo network raba inuu ka shaqeeyo. exploit waxay samaynaysaa amba exploit macnaheedu wuxuu yahay waxa weeye waa qofka oo adeegsada amba systemkiisii au isagu isticmaalaya laga adeegsado oo si aan sax ahayn loo isticmaalo. Exploit baa loo yaqaanaa kelmadda. Kelmad kale waxaa jirta meesha ku qoran oo la yidhaahdo vulnerabilities. Okay, vulnerable waa wax nugul, macnaha applicationka isticmaalayso meel ayuu ka nugul yahay. Marka si aad nugulaanta uga badbaadid waxaad u baahan tahay inaad aqoon u leedahay systemka ilaalintiisa. Marka understanding the cyber threat landscape waa inaad fahansan tahay qaabka cyberku
iyo treatkiisu u socdo. Service involving tactic waa inaad taqaano tactico ku gaara amba tactics aad wax ku ilaalin karto. Okay, criminal are consistently developing a new tactic from phishing scam. Waxay isticmaalaan wax loo yaqaano phishing scams. Waxaa lagu soo dirayaa email lagugu leeyahay waxaad ku guulaysatay shayga, waxaasan kuu qabanaa, lacag baan ku amaahinaa, waxaad ku guulaysatay waxa loo yidhaha lottery amba bakhtiyaa nasiib yaad xaq u yeelatay. waxaa kale samayn karaa waxa la yidhaha ransomware, waxa la yidhaha ayay systemkaaga gelinayaan ransomware attack, kadibna systemkaagu wuxuu noqonayaa mid encrypted amba aan la akhriyi karin, kadibna waxaa la codsanaya lacag. markay saas sameeyaan exploiting vulnerability, meelihii uu ka nuglaa systemku ayaa la gelayaa oo laga soo gelaya. Okay, weligaa qof hadduu kusoo waco idhaahdo computerkaaga ayaan ku hagaajinayaa, cilad baan ka aragnay, Microsoft baan ka soconnaa, waxyaalahaasoo kalea lagu odhanaya, markaa ha rumaysan. Okay, target attack, meesha la doonayo in la attacko amba shayga attacka organization all sizes. kombaniyada amba organizationada waaweyn dhammaantood wuu ku socdaa. Okay, waxayna ka attackayaan vulnerable-ka meeshay ka nugul yihiin to target attack. So waxa markaa la rabaa attackkaasi waxa ka dambeeya stealing sensitive data, in la xado datada. Okay, taas ayaa ka dambaysa. markaa saas ayay samaynayaan, oo marka intaa la helo waxaa la samaynayaa sensitive information. datada marka la ataagareeyo waxaa la ogaanaya dadka ka shaqeeya si ay u kala sareeyaan, amba email baa lagu soo dirayaa, kadibna link click garee baa lagu loonayaa. Okay, waxaa kaloo aan ka hadlanaa si markaan iskaga ilaalino ciladaasi si ay noogu imin, waxaan u baahannahay waxyaalahan soo socda. implementing strong access control, in gelitaanka la adkeeyo markaa systemka, si markaa qof aan loogu talagelin systemka aan u gelin, amba systemkaad gelaysaa inuu yahay mid au securitygiisu aad u sarreeyo. waxaa markaa qofka laga rabaa multi factor authentication. hadduu normally password ku geli jiray, waa inuu haysto waxay qolada password security waxay dhahaan something you know, waxa aad u taqaanid, iyo something you are, iyo wax aad u tahay. Okay, waxaad adigu tahay waxa ka mid ah de indhahaaga iskale. qofna indhaha iriska ku jira la mid maaha, wuu ka duwan yahay. fingerprinterka fartaada ku yaala xariiqyadeedu wuu ka duwan yahay qofka kale. marka waa waxaa tahay adigu. codka qof walba codka kale waa ka duwan yahay. kaas ayaa loo yaqaanaa multi-factor authentication, waa inay haysatid. marka hal shay hal password weligaa ha u isticmaalin systemka oo wax kastood furanaysid. marka waxaa laga rabaa inaad password inaad leedahay, hadday aad telephone leedahay amba emailkan aad leedahay kugu soo diro verify lambarka amba lambarka random number ama text message kugu soo diro systemka si aad ugu gashid lambarka generatina. marka wax laba ka badan, hal ka badan ayaad u baahan tahay si au systemkaagu u ahaado mid aan la xadi karin. so for example, hadduu qof ogaado passwordkaaga iyo emailkaaga au galo, hadduu haysto passwordka wax ka badan uu ku xidhnaa, oo for example telefonkaaga kale ku xidhnaa, text message buu soo diraya,
wuxuu odhanayaa lambarka soo geli generate lambarka marka qofkii ma geli karo marka taas multi-factor authentication kaas ayaa loo jeedaa is required user to provide a multiple form of identification markuu gelayo iscadaynayo ciduu yahay such as password waxa loo yaqaano security token waxa kaloo kamid ah biometric to access to sensitive information hadduu sensitive information ku jiro biometric buu bahay biometric maxaa kamid ah markaa saan hore usoo sheegnay waxaa kamid ah waxa loo yaqaano fingerprinter okay fingerprinter baa kamid ah waxaa kamid ah face wejiga qofka qofna qof la weji maaha face recognize baa kamid ah waxaa kaloo kamid ah waxa loo yaqaano voice recognize waxaa kaloo kamid ah isha iriska ku jira waxyaalahaas ayaa loo yaqaanaa biometric okay si kale loo adkeeyo waxaa kamid ah password policy companygaagu waa inuu leeyahay waxa la yidhaha password policy passwordka wuxuu kugu qasbayaa systemku enforce strong password inaad password adag aad leedahay marka policyga user required waxaa laga rabaa baa lagu odhanaya complex password inaad samaysatid marka waxaa lagu odhanayaa sistamyada qaarkood markaa iska diiwaangelinaysa wuxuu ku leeyahay soo geli ugu yaraan 8 character oo ku jiro number iyo character iyo letter capital lowercase iyo uppercase labada midkood ay ku jiraan waa inaad samaysato qaar baa ku odhanaya 10 xaraf oo numbers ku jiro samayso marka adiga ayaa systemka u sheegaya aad ilaalinaysid securitygiisa so saas sida ogtiin cyber security waxyaalaha hadda waqtigan xaadirka loo baahan yahay ardayda waxaan oran lahaa barta cyber security waqtigan maadaama waqti lagu jiro artificial intelligence oo shaqeynayo oo yahay security-gu aad ayuu muhiim u yahay talaabada saddexaad ee muhiimka ah ee systemka lagu ilaalinayo waxa kamid ah wax loo yaqaano ICL amba loss access control list loo yaqaano kaasi markaa wuxuu ka celinayaa restricted user access to specific resources based on roles qofku marba qofba wuxuu u mas'uul ka yahay oo kaliya amba loo ogol yahay inuu sameeyo responsibility-giisa company-ga uu geli karaa marka system kaasina waa loo baahan yahay marka ICL okay waxa kaloo looga baahan yahay qofka cyber security engineer-ka amba IT consultant-ka markuu network dejinayo inuu fahansan yahay infrastructure-ka network-ga okay so shay muhiimka ah ee network-ga lagu ilaaliyo waxa kamid ah firewalls okay firewall-ku waa device amba software ayuu noqon karaa kaas oo u dhaxeeya amba wuxuu noqon karaa barrier okay waa wax kala xidhaya adiga macnaha systemka between your network and internet ayuu kala xidhaya okay oo kala goynaya macnaha checkpoint oo kala weey okay so blocking wuxuu joojinayaa oo blocking uu ku sameynayaa amba uu xidhayaa unauthorized access dadkan loo ogolayn and malicious traffic iyo malicious traffic-ga aan saxda ahayn ee wax ka sida yihiin ay isticmaalaan dadka viruska iyo spyware-ka iyo waxyaalaha sameeya okay macnaha waa filtering af Soomaali wuxuu noqonayaa shaandho wuxuu noqonayaa miirid wuxuu kala miirayaa
traffigii wanaagsanaa iyo traffigii xumaa. Okay, technically waan baran doonaa siduu u shaqeeyo firewallada. firewallada ardayda waxaan odhan lahaa qofkii jecel ha barto Palo Alto, mid la yidhaahdo Palo Alto. Cisco Firepower ayaa ka mid a, Checkpoint, FortiGate ayaa ka mid a, qaar badan ayaa ka mid a. Marka firewalls saas ayuu u shaqeeyaa, wuxuu kala miirayaa traffigii xumaa iyo traffigii la ogolaa iyo kii aan la ogolayn ayuu kuu samaynayaa. waxaa kaloo muhiima inaad fahantid qofka raba inuu cyber security ka shaqeeyo VPN. VPN waxaa laga soo gaabsaday virtual private network. Okay, marka muxuu sameeyaa virtual? wuxuu kuu sameynayaa, uu ku siinayaa, amba wuxuu u sameeyaa networka create, wuxuu abuurayaa secure connection, mid aad iyo aad u safe, connection aad iyo aad u safe oo u dhaxeeya between remote users and your organization. userska adiga kuu shaqeeya ee ka shaqeeya remote amba guryaha ka soo shaqeeya ama meelo ka baxsan companyga gudihiisa oo dibadda ka soo gelaya ayuu u ogolaanayaa inay si securely u soo galaan. marka labaad wuxuu sameynaya wax la yiraahdo encrypting all data. datada markaa dhex marasa internetka over internet idna wuxuu ka dhigayaa mid all encrypting all data transmitting over internetna wuxuu ka dhigayaa mid aan la akhriyi karin. encrypted waa shayga oo sidii loo yaqaanay formatkii laga bedelay oon la akhriyi karin, kaas ayuu ka dhigaya. kaasina waa muhim, waa loo baahan yahay qofka baranaya inuu qofka baranaya amba inuu ku shaqeeyo cyber security, VPN iyo firewall inuu fahamsan yahay. waxaa kaloo muhiima inuu fahmo waxa loo soo gaabiyey IDS, waa intrusion detection system. kaasina markaa wuxuu sameeyaa, wuxuu monitor gareynayaa monitoring network traffic for suspicious activity. traffiga laga shikiyey ee socda amba activityda socda ee laga shikisan yahay ayuu wuxuu u dirayaa fariin alert administrator to potential threat. wuxuu leeyahay waxani waa laga shikiyey, bal fiiri. so waa nooc lagu management loogu sameeyo securityga detections. okay okay si aad u ilaalisid sensitive data, waxyaalaha gaarka ah amba datada amba xogta kombaniyadu ku shaqeeyaan, ha noqoto mid customer personala, ha noqoto waxa loo yaqaano trade secret, companygu wuxuu ku shaqeeya u gaarka ah. waxyaalahaasi si loo ilaaliyo waxaa muhiima in encrypted laga dhigo, mid aan la akhriyi karin. converted data into the unreadable format, mid aan la akhriyi karin in laga dhigo. and making laga dhigo unaccessible to unauthorized individuals, qof kasta uun iska geli karin. okay, thus 3 conditions ayay ku siinaysaa waxa loo yaqaano encrypting. unreadable format waa kow. waxay kale ku siinaysaa inaccessible, inuu qof kasta iska geli karin oon loo ogolayn. okay, iyo datada oo formatkeyga laga bedelay. number 2, data loss prevention. datadu inay loss garowdo oo luntona in laga ilaaliyo weeyaan, oo loo soo gaabay DLA, data loss prevention. taasi oo markaa la ogaanayo oo laga ilaalinayo datadu inay lunto marka ay dhex marayso networka. protected against data breach and leak. waxaa dhacaya
data breach and leak inay dad aan la ogolayn arkaan informationkaaga in laga ilaaliyo taasina waa muhiim profession waxaa kaloo loo baahan yahay number 2 waxaad samaynaysaa backup datada backup baad u samaynaysaa macnaha markay fiican tahay ayaad meel ku save garinaysaa computerkaaga siduu u shaqaynayo inuu fiican yahay kadibna hadday cilad timaado recovery wax la yidhaha waad samaynaysaa marka regular backup waa very important to ensure that you can restore it even a disaster hadduu dhaco amba cyber attack hadduu dhaco disaster hadduu dhaco waxaa dhici karta inuu daad ku soo galo inuu gurigu gubto business meeshay taalo waxyaalahaasi ayaa cause gareyn kara ba in attack lagagu sameeyo oo si software ahaana laga wipe gareeyo systemkaagii oo dhan taasina way keeni kartaa marka kuwaasi si iskaga ilaalisid backup ayaad u baahan tahay oo very important backup okay preventing and detection cyber attack waxaa loo baahan yahay inaad heli taqaanid inaad ka ilaalin inaad taqaanid inaad ka ilaalisay systemka inay dhibaato soo gaadho preventing hadday ciladi gashona inaad detecting samayn kartid inaad heli kartid ciladii ood ogaan kartid markaa si taa loo sii hormariyo waxaa muhiima in tallaabooyinkan 1 2 3 la qaato tallaabada koobaad waxa weeye security awareness training inaad leedahay foojignaan ama taxadir siyaada ah oo ku saabsan security-ga taasi markaa waxay ku siinaysaa educate employee about common cyber threat inaad bartid noocyada ugu badan ee caadi ahaan la isla yaqaano ee cyberka inaad bartid shaqaalahaaga aanad bartid best practice to prevent si iskaga ilaalinaya so for example waxaan email hadduu ku yimaado aanad garanayn qofka kuu soo diray ya ha furin ya phishing way delete habo ha isku furin systemka adoo ku jira ha furin saasoo kale ayaad noqonaysaa okay waxa kale laga baahan yahay companygaaga inaad vulnerability-ga scanning aad samayn kartid meelaha nugul ee systemkaaga uu leeyahay for example windowda systemka isticmaalayso networka application kasta oo la isticmaalayo wuxuu leeyahay wax meel uu ka nugul yahay oo laga soo geli karo si fudud marka kaasi wax lagaga baahan yahay regular scan your system inaad si joogto ah caafimaadka systemka aad u baadhid inay meelo nuguli jiraan hadday jiraanna aad samaysid waxa la yidhaha patching update aad ku samaysid isla markiiba si aad uga ilaalisid to prevent exploitation in la iska soo geli karo markaa 3 waxaa lagaga baahan yahay securing information and inventory management inaad software-kani aad haysato loo yaqaano SIEM security information and inventory management systemkan wuxuu kuu suuro gelinaya markaa centralize security log waxyaalaha loga ee ciladaha dhacay amba laga shikiyey meel ku kaydiso central sida picture-kan inoo muuqdo qofkan meesha joogo screen fara badan baa u yaala markaa wuxuu kala socdaa events-ka oo dhan device-yada oo dhan markaa central server baad ku xidhaysaa si ay ugu diraan waxa la yaqaano logska logs waxa weeye waa ciladihii computerka xilligii la shiday ciladay timid waxa oo dhan ayuu meel ku ururinaya okay organization detect si hadhow markaa muhiimadu waxa weeye detect loo baaro amba loo ogaado kadibna looga jawaabo incident faster si degdeg ah cilada loo xalliyo okay waxa kaloo muhiim ah response in the security inaad awood u leedahay
incident markay dhacdo inaad ka jawaabi taqaanid. So you have to have your own plan. Okay, incident response plan waxaa looga baahan yahay kow develop a plan outlining steps. Step 1 2 3 4 5 la marayo waa inuu leeyahay companygaagu security incidenta loo xaliyo marka halka la marayo. So cyber security waxaad ku baran doontiin waxay leeyihin wax la yidhaha tier 1 tier 2 tier 3 iyo management SOC manager. SOC waxa la yidhaha ayaad ku baran doontiin. SOC waxaa laga soo gaabsaday wax loo yaqaano security operation center ayaa laga soo gaabsaday. Marka waxay leeyihiin xaalado kala duwan iyo nidaam la maro. Cyber security-ga ayaad kusii baran doontiin information-ka aadka u badan marka. Number 2, contain the damage. Damage-ka ama dhibaatada la soo gaarsiiyay system-ka inaad awood u leedahay an isolated infecting system to prevent the spread of malware and minimize damage. Marka haddii markaa aad meel ku xidhid systemka cilada yeeshay, taasi waxay yaraynaysaa amba ay ka hordegaysaa inuu xanuunkii ku sii faafo networka. xanuunka oo ahaa malware iyo adigoo yaraynaya damage-ka ku imanaya systemka. Okay, taasina inaad taqaanid contain damage ayaa loo yaqaanaa. Number 3, investigate. Inaad dabagal ku samaysay incidenta adigoo ogaanaya waxa koosgareeyay incidentan. waad caddaynaysaa waxaasaa koosgareeyay sidaas u dhacday, softwareka caynkaasa la isticmaalay, malwareka caynkaasa la isticmaalay, dhibaatadaas uu leeyahay, xilligaasa la isticmaalay, meeshaasu ka soo galay, qofkaasu ka yimid. IP addresska markaa identify vulnerability meesha uu ka soo galay ayaad ogaanaysaa. Number 4, recover. ciladii waa laga raysanaya marka, amba waa laga bogsoonaya, amba waa laga soo noqonaya dhibaatadii systemka waa laga soo celinaya marka. Remediated ama meel gaara oo loogu talagalay kuwa buka amba computer systemka xanuunka uu galay meel ayaad markaa ku haynaysaa. Restore affected system and implementing security measure. Okay, si markaa aad u ogaatid dhibaatadu intay gaadhsiisan tahay qiyaasta, taas oo ku baraysa hadhow to prevent, aad ku ogaanaysid amba taxadir ku siinaysa to prevent a future attack. inuu attackan oo kale kugu soo noqdo futureka ayaanad ka baranaysaa marka. haddaan haddaba nimaadno gunaanadkii presentationkeenan, fostering culture of cyber awareness waxaa muhiima 1 2 3 ayaa ugu muhiimsan. So waxaa laynaga rabaa marka hore inaan organizationkeena dadka inoo shaqeeya inaan training fiican siino. Communicationku inuu noqdo mid opena. qofkii cilada soo hela ee shaqaalaha ka mida in reward la siiyo oo hadiyad la siiyo oo la yidhahdo qofkaasi waxaa fiican buu helay, xanuunkaasuu ka ogaaday systemka soo galay amba viruskaasuu ogaaday uu noo soo sheegay, reward baad siinaysaa qofka ya, iyo inaad ogaatid xanuunkaasi nuucu yahay. Okay, so continuous training maxayna siinaysaa providing ongoing security awareness. waad sii wadaysaa trainingka awareness-ka to keep employees informing about latest threat. kolba ka cusub ee soo baxa ayaad ogeysinaysaa shaqaalaha kaaga shaqeeya companygaaga. Okay, taas ayaad ku tarin karaysaa. marka taana waxa u qaabilsan inuu mar kasta tababarkaa bixiyo oo ogeysiiyo, amba email ha ugu diro, amba room meeting presentation ha u qabtee. waxaa muhiima qofka cyber security ayaa responsibility ka qaadanaya markaa.
qaybta securityga IT securityga ayaa responsibility ka qaadanaysa. Open communicationku markaa isagu waxa weeye waa encourage employees to report suspicious activity. Hadday wax ka shakiyaan inay soo report gareeyaan ay kusoo sheegaan dhibaatadan ayaa jirta oon aragnay maxay tahay, potential security risk, amba waxay u arkaan iyagu inuu yahay khatar siyaada ah. Recognize inaad aqoonsatid employees who demonstrate strong security, qofkii kuu sheegay amba awoodda u lahaa security practice si fiican u isticmaala and contribute environmentigaas sameeyey, isagana waxaa siinaysa wax reward ah. Marka aad iyo aad baad umahadsantihiin. Halkan ayaan kusoo koobanaa presentationka. casharad badan ayaa inoo soo socda. wixii common iyo wixii su'aalaha aad qabtiin igu soo qora hoos commonka. su'aalihiinu iyo commonkiinu waa aad bay muhiim yihiin. waad mahadsantihiin. waxaynoo bilaabay sanad cusub insha allah. dhammaantiin waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno, horumar inaan ku soconno aakhirada adduunyadaba. wasalaamu calaykum waraxmatullah.